halkan waa noloshay ka guureen qoladii SNM iyo huunadoodii waa qolka yar deganaa surwaalkiisii ka tagay yaa qolka yar bay deganaa meeshu waa xeradii موسى جان waxaa la yiri ciyaaladii Mandheera oo ku xirxiray oo bari hore cadaalad darrada dadka kaga xiray leeraha saaqa ay meeshii buu maanta fariinta ku soo wada Allah abaad Muusa Jaahil taraafikada iyo Mandheera xabsiga dadka ku xirxiray oo soo wadaay tan walaadan ugu dabaashaaday marku waa cala Soomaaliland looga taagay haddaan qof ka haray dadka meelaha jooga mir hadduu ka haray ruba ku sheegay tuug la qabtay baa tala male Somaliland waxa ay bilowday inay jirdisho oo ay bahdisho oo ay dhibaatayso maxaabiistii ay gacanta ay ku dhigeen oo ay doonayaan inay sira ay ka soo saaraan sidoo kale waxa ay caalamka ka dalbatay kuwa kamid dad calooshood u shaqaystayaal ah oo diyaarad daruuraysa ku caawiyo si laas caanad matana ay uga hesho waxaan uga hesho matana qayb kamid ay qabsato kale airport matana ay qabsato sidoo kale ninkii Muuse Biixi markii caalamku uu ku qeeliyo ciidanka kala baxay shir degdeg ayuu qabtay hadda maxay kaga hadleen barnaamijkaas ku daawan doontaa sidoo kale waxa soo gaaray haddana Somaliland gaadiid badan iyo waliba hub aad u badan oo uga yimaadeen dhanka Djibouti laakiin waxay ku dib qabaan sidii uu soo gaarsiin lahaa gooja cadde iyo waliba aagan ee dhibaato ka taagan tahay ee gurmadka degdeg la soo gaari lahaayeen guud ahaan barnaamijkeenan ku qaadanay doona muqaalka shirgaray asxaabtiina la wadaaga Somaliland waxa ay bilowday inay dhibaatayso maxaabiistii ay gacanta ku haysay nin maxbuus oo adiga gacantaada ku jira waa miskiin saa adiga doonta ka yeelayso waxay bilowday marka si caalamkii dhan ku soo horjeestay si caalamkii dhiis u soo jeediso in maxaabiistan intay cadaabto koronti ku qabatay walba dadku waa dad wada shir isku dhex jiraan Somaliland waxay moodaa iga qaar kuwa hadda xukun ka hayo ee la isogeen laakiin ma ogo in la isku dhex jiro oo kuwa badan oo iyaga ma taqaanay lab ku jiro oo u shaqeynayo inay ka soo horjeedaan nidaamka Muuse waa arkaysan maanta warqadii ay soo saareen beelaha Garxajis ee markale u baaqeen ciidamadooda beesha Garxajis inay dhammaan ka soo baxaan gooja cadde wadadan loo banayn doono inay soo gaaraan deegaanadooda Muuse iyo taliskiisa waxay bilaabeen maxaabiistii ay gacanta ku hayeen inay dirdilaan ay dhibaateeyaan maxay ka rabaan marka maxaabiista waxa loo akhrinayaa program dheer raggi shabaabka iyaga ugu jiray ee keensadeen waxay dhahan ciqaab marka la ciqaabo kadib waxa u sheegtaan meelaha qarax la mariyo sida loo sameeyo wixii dad ay kala hayeen imaashii la sacarood musalsal saas oo ka hadlayo inay nimanka al-shabaab ka tirsanaayeen ama Daesh ka mid yihiin oo akhriya hadhow marka hal imaadan TV-ga laga duubo hadhahan anigu hebel ah oo magacii afgarashada hebel uu yahay oo guudida baa ka tirsanaa nimankaas halka u qaabilsanaa caalamka la tuso oo la yiraahdo wakaas waxay dhii sheeganay la saacad argixisa soo weerartay laakiin wala fahmay fashil baa ka dhacay koronti ku dhajiyeen baaste mataqaanay bacda baasante ay gubeen iyo ku dhalaalinayeen nabraha dhawarkooda kulli ugu yaala wallahi marka Somaliland dhibaatadaas maxaabiista ku haysa laakiin muuqaalo iyagu ah iyo maqal iyo muuqaal inta baraha bulshada mataqaanay waa la wadaagi doona waana la hayaa taas hadaa ka soo dhamaano beesha Garxajis maanta marka la warqad bay soo saareen waxay ugu baaqeen ciidamada beeshaasi inay gabi ahaanba ay ka soo baxaan dhulka SSC iyagoo matana ku baaqay in haddii ku dhinta meesha iyada ah ay ku tahay dhibaato waayo dhul iyaga ay leeyihiin maaha deegaanada iyaga ay degnaayeen dee waxaa ka dhacay abaar waxaa ka dhacay sixir bar waxaa ka dhacay gaajo waxaasoo dhanna waxaa sabab u ah ciidamadan la soo dhoobay ee toban la sacaanood oo keenay Muuse uu doonayay inuu ku xasuuqo dadka shacabka marka warqadaasna maanta
ayay soo baxday. Muuse Biixi wuxuu ka dalbaday qaar ka mid ah caalamka kuwa caloosha u shaqaystayaasha sida Imaaraadka inay siiyaan drones. Abiy Ahmed waagii ay xaaladdu ku adkaatay uu la dagaalayay nimankii ahaa TPLF-ta yaa wuxuu sameeyey inuu Imaaraadka iyo kuwa ka dalbaday diyaarado oo u duqeynayay TPLF waana mid ku guuleystay. laakiin Somaliland weli waxay ilowsantay inay Soomaaliya ka mid tahay oo weli wuxuu noqotaanka hubku saaray markii laga tago hubkan sida qarsoodiga ah uu ku soo gelinayo Ismaaciil Umar Geelle ninka dhiigacabka ah ee mataqaana shacabkiisii dadkiisii xasuuqay ay dhibaateeyay habeenii maalin mataqaana u taagan sidoo mataqaana dadkaasi uu isirfeen u sameyn lahaa. haddaba ninkan isaga waxay dalbadeen marka diyaarado dagaal in lagu caawiyo si dagaalka Laascaanood ay qayb ay ugu noqdaan, laakiin taasi ma suurtagelin. markii ay xaaladdu halkaas ay marayso waa kii maanta luqadda ay soo saareen beesha caalamka ay kaga hadlayeen markii Muuse ay la shireen oo uu soo bandhigay ajandihii ay ka wada hadleen ee ku saabsanaa amniga Laascaanood sida laga sameynayo inuu yiri Puntland ma soo weerartay ciidamada meeshaas tuwan xaaladaas uu kaga hadlay laga dhageystay. kadib waa kii warqad loo soo saaray oo ay Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dhammaan wadamadaas kaga hadlayeen oo lagu amray Muuse in ciidamadiisa uu kala baxo gobolada SSC. laakiin markii warqadaas soo baxday kadib wuxuu iskugu yeeray ragga isaga mataqaanay ologala ee inta badanna ay colaadaas isla hubinayeen. Somaliland inta badan isku waafaqsano dagaalka mataqaana Laascaanood waana xaqiiq jirta weyn, laakiin dad isaga saaxiibo dhow yihiin oo qaab xun talada u siiyo yaa jira. dadku deegaanka way wada degaan waana wada dhasheen waana saaxiibo waana dad mataqaanay ehel iyo qaraabo inta ah. laakiin Muuse Biixi isaga dantiisa uu ka dhaxarkay oo ah in uu doorashada dib u dhigo si aan loo qabanin oo u yiraahdo dagaal baan ku jirnaa. waxyaabaha uu ku antacoonay laakiin uusan ogeyn inay dhibaato ku tahay Somaliland in SSC ay ka maqan tahay. wuxuu iskugu yeeray marka saaxiibadii wuxuu dhahay waa arkan xaaladdu meesha ay marayso xagee wax ka qabanaa xageen wax ka qabanaa waayo caalamku waan la hadalnay way naga diideen wixii anaga aan rabnay u bandhignay ee ah Puntland baan kala xaajoonay arrintan iyada way diideen. Puntland baan soo weerartay way naga diideen. amar waxay ugu siinay inaan ka baxno Laascaanood. haddii aan ka baxnana oo ciidanka intaan aan og aan geynana dhibaatadii meesha ka sii badanaysaa oo inta kaliya ma ahaanayso waayo hadhow beelahan dhulbahantay waxay tegayaan xuduudoodii og bay tegayaan halkaas marka iyo xuduuda ka xiran doona si ay ula heshiiyaan way adkaanaysaa. maxaa sameynaa waxay tala ku siiyeen in aan la qaadanin hadalka beesha caalamka balse mar kale ay duulaan kale ay qaadaan. wuxuu dalbaday hub baan ka arkaysay shalay oo